Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda sharafta leh igu xiran sidee tihiin may fiican tihiin anigu idin wanaagsanahay maanta waxaa idin la wadaagayaa video dhiirigelin ah aba motivation ah marka videoga maanta idin wada wuxuu ku saabsan yahay pantry organization aba maanta waxaan hagaajin doonaa khaanadaha oo raashinka qalalan aan dhigto sida bariiska baastada waxyaabahaas marka khaanadahaas hagaajin doonaa nadiifin doonaa habeyn doonaa qurxin doonaa insha Allah so I hope videogan inuu idin qancin doono amba wuxuunad ka faa'iidi doontaan amba dhiirigelin uu idin noqon doono insha Allah soo dhawaada ilaa arkaysan khaanadaha uu hagaajinayo daawasho wanaagsan so guys waatana khaanada maanta rabay inaan hagaajiyo aan habeeyo insha Allah khaanadan waa khaanad iska yar ma weyna laakiin familkayga yar marka waan ugu filan tahay khaanadan normally khaanadan waxaan dhigaa amba aan ku store gareeyaa amba aan saaraa raashinka qalalan iyo xawaashida iyo waxyaabahaas marka shalay toolan ka dajiyay quraaradihii oo raashinka qalalan iigu jireen si aan u nadiifiyo marka hadda saa u jeedaan khaanadii waxaa ku soo haray waxa weeye xawaashi quraarada xawaashi ka dhamaadeen kartoomo waxyaabahaas ayaa yaala iyo halkan koloon weel saaray marka waxaa soo dhawaa ka nadiifin doonaa insha Allah waan habeyn doonaa halkaan saa u jeedaan waxay ugu diyaarsan quraaradii aan raashinka ku shubi lahaa insha Allah marka quraaradahan shalay aan ka soo dajiyay armaajada waan dhaqay waan qalajiyay waxaan u diyaariyay inaan raashin ku shubo halkaan saa u jeedaan waxa yaala raashinkii aan quraaradaha ku shubi lahaa isagana halkaan ku soo diyaarsaday halkaan waxa yaala waxa weeye sanduuqan waxaan ku ridaa waxa weeye quraaradaha markii aan raashinka ku shubo wax yar baa ka soo hara qaarkood marka waxa yar ka soo hara sanduuqaas aan ku ridaa marka waa kaasa ilaa arkaysan wax sameynayo soo ugu horeyn wax aliyo wax alaab meeshan saaran oo dhan haday noqoto xawaashil haday noqoto weel dhulka ayaan ka soo dhigaynaa waa ka soo dajinaynaa meeshan ani normally meeshan weel iyo waxaas ma saarto laakiin mar aan maanta jikada nadiifinayay baan weelka kor ka saartay kadibna sidii aan ugu iloobay oo videoga aan ku bilaabay marka waa kaas alaabtii oo dhan waa ka soo dajinay hadda waxaan rabaa inaan nadiifiyo marka bahalka halkan yaalo oo surface cleaner ay ku qoran tahay ayaa meeshan ku nadiifin doonaa marka bahalkii aan soo qaaday meeshii aan ku buufinayaa gidaarkii shelfiska waxa dhan ayaan ku buufiyay surface cleanerkii kadibna waxaan soo qaatay waxa waaye tissue paper amba tiish amba cleanigis si aan meesha si fiican aan u nadiifiyo aan u clean gareeyo marka waa kaas si fiican aan meesha u nadiifinayna insha Allah igana raali noqdo videoga degdeg baan ku furay amba boobsiis hadii kale way idinku dheeraanaya waana soo yara jarjaray videogan mid kale wadankan aniga joogo cimiladiisu waa kuleel aad bay u kulushahay marka guryaha looma sameeyay khaanada raashinka waxaas lagu gurto hadii xitaa loo sameeyana albaabkooda uu furan yahay sababtoo waa kuleel xasharaadka iyo waxa weeye xayawaanada oo dhan baa ku galaya khaanadaha mid kale waa iska wadan fuqara oo badanka lamaba sameeyay khaanadii waxaas khaanadan aniga haystana aniga ayaaba soo gatayba markii aan meeshii nadiifiyay hadda waxaan rabaa quraaradahan inaan ku shubo raashinkii marka ugu horeyn bariiskii aan soo qaatay wuxuu ahaa bariiskaygu kiilo iyo barbariisa marka quraaradii ayaan ku shubayaa labadan quraaradeed u jeedan ayaana ugu weyn waxay qaadaan kiilo iyo wax yar kuwa kale way ka yar yihiin marka waa kaas kiilo iyo barbariisan haystay wax yar iga soo hadhay waxa yar waxaan ku shubi doonaa insha Allah khaanadii aan ku ridi doonaa quraaradan kalena saa u jeedan waxaan ku shubay waxa waaye daqiiqda cadaanka ah saddexdan quraaradood ee kan way isleeyihiin tan ugu horeyso waxaan ku shubayaa waxa weeye chickpeas amba shumburada nooca cadaanka ah tan dhaxana waxaan ku shubayaa saa u jeedan hadda waxa weeye sonkor ayaan ku shubayaa marka sonkorta eedan wax yar iga soo hadhay isla khaanadii ayuun baan ku ridi doonaa insha Allah tanina waxaan ku shubayaa hadda waxa weeye basbaas cas basbaaskan isticmaalo waxa waaye basbaas Ethiopian waaye basbaaska macaana kaas ayadina waa ku shubay halkaan saa u jeedan waxaan ku shubayaa wax weeyaan daal amba waxa la dhahaa magaciisa ay u dhagay misir waaye halkan waxaan ku shubayaa cerealki oo waxa weeye lagu quraacan lahaa insha Allah halkan waxaan ku shubayaa boorash amba oats dadka qaarna waxa u yaqaanaan amba muushaari laakiin aniga boorash aan u aqaana marka quraaradana boorash baan ku shubay quraaradan saa u jeedan waxaan ku shubayaa waxa weeye shuuro amba soorti lagu suxuuran lahaa insha Allah Ramadaanka ilaahay caafimaad iyo barwaaqo uu gaarsiiyo soonka iyo Ramadaanka hadii ilaahay yiraahdo halkaan waxaan ku shubayaa wax weeyaan
makaroonaha laba nooca isticmaalaa, noocan yaryar oo aada u macaan iyo noocan kale. Noocii kale makaroonaha hadda qaybtan aan ku shubayaa saa u jeedaanba. Kadibna halkaasaan iska dhigay caagadiisii. Marka hadda waxaan sameynayaa alaabtan oo dhan waan wada daboolayaa, furarkoodii amba dabooladoodii aan ku xirayaa. Ani badanka waxaan isticmaalaa quraarado, laakiin dhowr nooc waxa igu jira hadda gees ah iyo laba caag ah. Sababtoo ah samayskoodii waxaasaan ka helay kadibna waan soo qaatay. Laakiin normally quraarada isticmaalaa sababtoo ah wadankan jooga waa kuleyle. Midda kale quraaradaaygu mid walba waa size, mid walba waa nooc, sababtoo ah hal mar ma soo wada gadanin. Midba meelaan ka soo gaday, meelo kala googooniye iyo marar kala gooniyaan soo gatay. Saa darteed kala size, kala midab, kala nooc u yihiin. Haddana waxaan sameynayaa furkaan saa u jeedaan. Waxa weeye muddo ii yaalay. Markii aan dhaqaba uu xoqmaa, waxa weeye quality-giisa xun. Marka waxaan rabaa inaan iska daboolo menu aan ka soo saaro. Marka waxaan soo qaatay warqadaas. Warqadan waa warqada ovenka lagu galiyo alaabta. Marka intaasaan soo jaray. Kadibna waxaan rabaa inaan daboolka ku kor xidho. Saa u jeedaan baa uu kor xidhayaa. Si meesha markaan u dhigo dee uu qurux u soo baxo. Waayo korkiisa waxoogay uu jeexmay. Dabooladana quality-goodu xumayd. Marka waa kaas sasaan ugu xiray warqadii saa u jeedaan. Kadibna hadda waan daboolayaa. Saddexda quraaradoodba furarkoodii saas oo kale ka soo dhig. Warqada cad baan ku soo xiray. Maasha Allah. New buu eegyihiinba. Haddana waxaan rabaa quraaradaha yaryar wixii aan ugu talagalay inaan ku shubo. Labadan quraaradood yaryar isku eeg. Midna waxaan ku shubtaa xawaashiga powder-ka ah. Midna waxaan ku shubaa xawaashka taagtaaga. Marka aniga nooca powder-ka waxaan isticmaalaa Arabian Mandi waa xawaash aad iyo aad u macaan. Marka laba kartoono isaga ka mid oo yaryar ayaa meesha ku shubay. Halkan ina saa u jeedaan waxaan isdhex gelinayaa waxa waaye filfil, hayl dawoole, qorofal iyo hayl. Waan layer ka dhigaan isku dhex shubay baa meesha ku shubay. Marka waa kaas sasa labadii xawaash ku diyaariyay. Daboolkoodii aan dhac ku siiyay waan daboolay. Quraaradan yar kala u jeedaan waxaan ku shubtay waxa waaye milix ayaan ku shubay. Ayadana waan daboolay. Dhinacaas ayaan dhigtay. Quraaradan waxaan ku shubayaa waxa waaye tea amba shaahi tea caleenta shaaha ayaa meeshaan ku shubay. Marka ayadana saa u jeedaan waan daboolayaa. Halkan waxaan ku shubayaa waxa waaye rice powder. Rice powder-ka badanka face mask ahaan ayaan u isticmaalaa. Asagana quraaradan yaraan ku shubay. Kadibna waxa waaye saas ayaan ku daboolayaa. Guys, waa kana alaabteeni sida quruxda badan leh ayay diyaar noogu tahay. Ani caadi ahaan alaabta intaan halkan ku diyaarsaday bandeel u isticmaalaa. Alaabta qaar waxaa jirta bishii 2 mar 3 mar aan u baahdo. Marka kuwaas uma sameeyo quraaradiyo meel aan ku shubo. Kaliya markii aan soo gadanayo baan wax yar oo igu filan soo gataa. Lacala xataa wax iga soo haraana khaanadii ayada ahayd ayuun baan ku ridaa. Guys, hadda waxaan rabaa alaabtii inaan shelfiska saaro. Marka kor saa u jeedaan waxaan dhigayaa waxa weeye labadii makaroone iyo wax yar oo flour aan saarayaa. Kadibna qaybtii labaad aan soo gudbo waxaan ugu soo horeysiyay sonkor waaye. Midda kale dadka qaar baa waxay jecel yihiin inay quraaradaha ku qoraan magac iyo date iyo waxa ay dhacayaan. Anigu date kuma qoriyo waxa sababtoo 2 week bas ii oolaan alaabtaani. Marka maxaan kaga qoranayaa date. Magacna uma baahni sababtoo alaabtaan la isku khaldayo jikada kaliya dhex wareega markaan u aqaana quraarad walba wixii aan ku shubay. Marka waa kaas haddana waxa waa qaanadii saddexaad aan habeenayaa bariiskii daqiiqdii wixii oo dhan aan dhigay. Marka saas qaanada alaabta ugu soo wada gurayaa dhamaanteed insha Allah. Haddana waxaan soo qaatay boxkeygii amba sanduuqeygii raayo caaga ah. Waxaan ku gurayaa alaabtii ii soo hadhay oo aan bacda sibloga ku soo xiray si aysan isugu dhex daadanin alaabtu. Mid walba bacda sibloga ku dhex daadata haday rabto ayaan sanduuqa ku guranayaa. Marka alaabtan sanduuqa ku guray ayaan ugu hor isticmaali doonaa. Kadibna quraaradaha ku xigsiin doonaa insha Allah. Marka waa kaas wixii oo dhan waan ku guray. Hadda hoos aan iska gelinayaa sanduuqa. Imikana waxaan rabaa labadan quraaradood inaan ku shubo saliid. Marka waa kaas mid waan ku shubay midkii labaad baa haddana saliid ku shubayaa. Quraaradaha waxay qaadaan half liter saliid ah. Marka waa kaas labadiiba waan ku shubay. Waxaan saarayaa furkoodii yaraa ayaan ku xirayaa labadii xabadoodba. Furkooda yar kalena waa u sii xirayaa. Kadibna caagan aan dul dhigayaa labada quraaradood saliid ah iyo quraarada kale oo flour iigu jiro. Kadibna geeskaas ayaan iska dhigayaa.
So finally armaajadii sida quruxda badan leh aad u jeedaan ayaa u habeeyay oo u organize gareeyay maasha Allah. raashinkiisa ayaan ku diyaarsaday. I hope videogan inuu idin qancin doono wuxuuna ka faa'iidi doontaan kolu dhiirigelin idin noqdo. waana rabadaantii aan leeyahay la isku sii diyaariyo rabadaanta si muddo waqti ah u heshid oo u cibaadaysatid oodan ugu mashquulin waxyaabo kale. So intan videoga ku xiga ka kulmayno waxaan idinkaga tagayaa maca salaama.